Assalamu alaykum. Ilbaxnimada maanta ilbaxnimo kasta oo meel ka curata ha ahaato ilbaxnimo maadi ah ama mid diini ah waxa ay ka gudubtaa caqabado waxayna ka tagtaa raadad mid wanaagsan ama mid xunba. Ilbaxnimada islaamka waa ay soo martay wadooyinkaas tan reer galbeedkana waxa ay maraysaa waayahaas ugu dambeeya ee ah waayaha burburka. Waxa la sugaana waa qarni gudihii in ay burburto dhabaday rabto ha u burburtee. Ilbaxnimo kasta marka ay bilaabanayso waxa ay ku bilaabataa u doodista xaqa iyo xurriyadda dadka aan wax bahaysan iyo wixii la midka ah si hal marba ay dhabahaas ka weecata oo burbur u kaba ilataa. Ilbaxnimada islaamka waxa ay xilliga ka jirtay waayihii nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaati noolaa. qayb dhan oo waayaha ka mid ah baa ahayd waayihii horseedka waxaana noolaa nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee oo horseed ka ahaa ilbaxnimo mari doonta waayahaas aan ka soo warannay, balse taa waxay u muuqataa in gadaal loo dhigay oo liskaba iloobay. Ilbaxnimada reer galbeedka waxa ay marxaladahan oo ah marxaladaha koowaad ee ilbaxnimada ka bilaabatay qarnigii 14aad ilaa qarnigii 16aad oo loo aqoon jiray xilligii baraaruga. Ilbaxnimada reer galbeedka oo hadda gabagabo iyo burbur ku sii socota waa waayihii ay bilowga ahayd ee dhidibada loo taagay waana waayaha horseedka, balse ilbaxnimo walba waxa ay wadataa dhibaatadeeda iyo wanaageeda. marka loo eego reer galbeedka ilbaxnimada maanta doonayaan waa ilbaxnimo ka gedisan mid islaamka waana mid lid ku ah tan diinta islaamka. Ilbaxnimada reer galbeedka waxa ay waayaha furashada ku jirtay bilowgii sahamada qaaradaha ilaa xilligii ay gumeysiga ku qabsatay Afrika iyo Aasiya. xilliga dhiig badan baa daatay waxa ayna reer galbeedku aragtiyadahooda ku sanduleeyeen dad aan reer galbeed ahayn oo iyaga oo dhulkooda iska jooga dagaal loola yimid. ilbaxnimada islaamku waxa ay waayaha soo martay xilligii dawladii reer Cabbaas. xilligaasna islaamku wuxuu galay ganacsi bulaalay oo lagu baraaray. ilbaxnimada reer galbeedku waxa ay waayaha ganacsi soo mareen ilaa bilowgii ka ganacsigii addoomaha ilaa oo ay dhaqaalaha dunida u curyaamiyeen hay-adaha IMF iyo weliba bankiga adduunka ee World Bank. marka dhulal badan la qabsado waxa isku furma ganacsiga waxaana dawladaha maalgeliyaan dad aqoon leh oo aan shaqo kala qaban si waxa la sheegay si loo furdaamiyo dhibaatooyinka ka iman kara dhulka baaxadda leh iyo weliba dadkaas deegaankaasba. taasi waxa ay dhalisaa in aqoon baarista ay hanti ka buuxiso dawladuhu oo ay soo baxaan dad badan oo aqoon baan leenahay wax ku cunaya. dadkaas aan shaqada kala qaban ee aqoonta kaliya ku mashquulay baa waxa ay soo saaraan waxyaabo badan oo waxtar leh iyo qaar aan waxtar lahayn waxa ayna ku celceliyaan ilbaxnimo. waana sababta ay bulsho u kori la'dahay oo hal qolo ama hal shirkad ay ganacsiga iyada kaliya suuqa ugu haysato. aniga ka ahaan culumta ganacsiga iyo dhaqaalaha wax badan kama garanayo balse waa inta aan fara guudkood ka maqlay ama aan ka baadhbaadhay ee daawada. haddii aad adiguba aad baratay culumta dhaqaalaha bal dib u yara milicso ilbaxnimada iyo dhaqaalaha iyo sida ay bulshadeenu u saamaysay. ilbaxnimo kasta marka ay si xoog leh ula wareegto ummad kale iyo dhul kale waxa ay aragtiyadaheeda ugu shubtaa xoog iyo xeelad hadbamkii ay wax ugu socon karayaan. kadib kheyraadka dabiiciga ah iyo xoogaa dadeed oo bulshooyinka ka mid ah ay qabsatay baa ku baraara waxa ayna gashaa barwaaqo sooran dadkeeduna waa ay raaxaystaan. waana halka meesha burburka ilbaxnimo ka bilowdo. dadka marka ay dhargaan ama ay fikireen sidii xoolahaba waxay ka fikirayaan oo kaliya wixii ay cuni lahaayeen wixii ay xiran lahaayeen iyo sidii ay isu galmoon lahaayeen. waxaana sidoo kale la furaa meelo lagu dhilaysto meherado waaweyn oo jannada la moodo iyo waxyaalo kale oo ka baxsan anshaxa. dadku wuxuu aayar ugu baqtiyaa qiimaynta iyo weliba kala garashada samaha iyo xumada. waxa kaliya ee ay dadku xilligaas raadinayaan waa xurriyad. waana sababta kaliya ay xurriyadda u raadinayaanna waa in ay sidii xoolaha u dhaqmaan noqdaanna hortaa bannaan gadaashaa bannaan. waxa ayna ilbaxnimadu lugaha la gashaa xilligii ugu dambeeyey ee ahaa waagii burburka. ilbaxnimadii islaamku waxa ay waayahan kaga digtay in ay dadku ka soomaan ilbaxnimada reer galbeedka. haddii aan dib yar u milicsano ilbaxnimadii islaamka waxa ay waayaha oo kale gashay xilligii Cabbaasiyiinta iyo xilligii Cusmaaniyiinta. xilligaas wixii ka dambeeyayna ilbaxnimada islaamku waa ay burburtay. haddii aan laga gaarinna hanaawilin inay dib u soo laabato balse
way jiraan dad badan oo ku dhagan ilbaxnimadii islaamka ee waayaha jiray isla markaana ilaa ay maanta ay jiraan wadamo iyo dadyow badan oo haystaan ilbaxnimadaas balse inta ugu badan maanta marka loo eego dunida waxa ay ku kadsoomeen ilbaxnimadii reer galbeedka hadda waxa ay ku jiraan xilligii barwaaqo sooranka iyo xilligii burburka waana ay caddahay in ilbaxnimadoodu ay soo bilaabatay qarnigii 14aad ayna mar dhow geesaha dhulka dhigan doonto Afrika waxa ka jira faqri dulmi iyo wiliba aqoon daro iyo wax kasta oo xun dhammaan waxyaabahani waa waxyaabaha inta badan sababa in ilbaxnimo la raadiyo waana waxyaabaha xadaarada ama ilbaxnimada dhaliya labada ilbaxnimo ee hore midi waa ay tagtay midna waa ay ku daba jirtaa waxa aan sugnaa waa ilbaxnimada Afrika iyo wiliba sidii u wajihi lahaayeen bulshooyinka Afrika isla markaana isaga saari lahaayeen waana sababta mar walba loogu celceliyo waxa aan nahay ilbax ama bulsho ilbaxday waxaan ku faanaa qaawanaanta waxaan ku faanaa iibsiga iimaanka waxaan ku faanaa qiyaamooyinka waana taas ilbaxnimada nala doonayo balse aan hal sir ku sheego ilbaxnimada aad raadinayso waxa ay ku jirtaa islaamka ay ha ka raadin reer galbeedka hana ka raadin meel kale kama soo helaysid xaqiiqdii taasi waa sir aan adiga idaawanayo ku sheegay haddaan fiirino dalkeena ma ka jirta ilbaxnimada islaamka ama ilbaxnimada reer galbeedka raadi oo baar waana helaysaa xaqiiqdii midii aad labadaas soo heshana igula soo wadaag qaybta hoose aragtiyadaha ee commentiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh